wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo ka soo hormuuqday telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in guud ahaanba uu fashilmay imtixaankii socday oo laga qaaday ardayda Soomaaliyeed ee sare u dhaafay 13500 arday. wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaaga waxbarashada ah waxay wasaaraddu go'aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baaba'sho ee dib loo qaado maxaa yeele macquul ma aha imtixaan saddex maalin imtixaanku socday 6 maadana waa la qaaday 6daba suuqa yiileen. wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre waxa uu tilmaamay in imtixaanaadka ay goobihii lagu talagalay qaarkood u shaqeynayeen si xor iyo xalaal ah ay jireen goobo qaar oo isku dayay inay ka sameeyaan faa'iidooyin imtixaadka isla markaana ay beecgeeyaan sida uu hadalka u dhigay. macnaha 90 iyo dheeraad goobood sidii loogu talagalay u shaqeeyeen laakiin goobaha go'aan waxay gaartay inay fashiliso. waxa uu tilmaamay in waalidiinta iyo maamulada qaar ee dugsiyada ay kaalin ka qaadanayeen imtixaanaadku inay noqdaan kuwo fashilan iyo sidoo kale kuwo suuqyada lagu kala iibsanayo. waxa uu sandah saarin wasiirku in 3 maalmood oo imtixaanka ay galeen ardayda Soomaaliyeed ay guud ahaanba ahaayeen kuwo suuqyada laga heli karo sidaa daraadeed ayuu ku tilmaamay inay tahay wax aan macquul gal ahayn. meelaha qaarkood waxaad la socotaan in lacag lagu kala qaadanayo waxay aad nasiib daro in imtixaanka ummadda Soomaaliyeed lagu qiimeynayo oo qofku guri ka raadiyo waliba bil Ramadaan aaday nasiib daro u tahay. waxaa nasiib daraa in waalidiintii qaarkood ay ka qayb galeen iibinta imtixaanaadkaas. waxaa nasiib daraa arday dadaalay inuu soo dhinac fadhiisto mid isku hadlaynayo inuu soo gatay imtixaan. haddaba wasaaraddu waxay go-aankaasi gaartay imtixaanka berito ma jiro kuwii hore loo qaadayna waa la baaba'shay imtixaan jiro ma aha. wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo sii hadlayay ayaa carabka la dhacay in imtixaanaadkii guud ahaan la burburiyay maalinta Talaadada ahna uusan jirin wax imtixaan isagoo intaas ku sii daray in imtixaanaadka dib loo bilaabi doono 27 bishan May isla markaana uu socon doono ilaa iyo 31 May. haddii eebbe idmo imtixaankaas dib aan u qaadi doonaa maalinta ay tahay 27 bisha wuxuuna socon doonaa ilaa 31 bisha 5 maalin socon doona. waxa uu wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre intaas ku daray in imtixaanaadka laga adkeyn doono sidoo hore isla markaana 5 maalmood uu socon doono imtixaanaadka aysan jiri doonin wax internet amaba bara bulsho oo ka shaqeyn doona gudaha dalka Soomaaliya. wasaaraddu waxay ku tala gashay markan inay sidoo hore si ka duwan oo ka adag ay imtixaanka u qaado. waxaa markan suuragal noqon doono 5 maalin inaan wax social media wadanka uusan ka shaqeyn doonin. tani ayaa ay ku kala aragti duwan yihiin ardayda u fadhiisay imtixaanaadka sanadan ee isla markaana ay qaadaysa wasaaradda waxbarashada. ardayda qaarkood ayaa u arka mid faa'iido ugu jirta inay ku taxadaraan isla markaana ay waxbarashadooda kaalin sare ku galaan halka kuwa kalena ay muujinayaan dareen ah in iyaguba ay hufnaan iyo dadaal galiyeen in ay qishaan imtixaanaadkana halkaasi ay ka raadinayeen waqtina ay galiyeen. wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu dhaliilay guud ahaanba inay ku fashilantay ka taxadaridda iyo ilaalinta imtixaanaadka midaysan oo 13500 arday sare u dhaafaysay ay ka qaadaysay kuwaas oo ku galayay magaalada caasimadda Muqdisho iyo gobolada dalka balse waxa haatan muuqanaya inay dadaal u bilowday wasaaraddu in haatan ay ka xaaxaabato dhulka isla markaana ay isku dayday imtixaanka fashilmay inay dib u kabto.